dhaqaaluhu kunkiiba kunbu u dhaafayo amniga kasii daran amniga kasii daran amniga kasii daran amniga kasii daran kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba caalamka meel walbo aad ka joogtaan iyo waqti walbo ay idin tahay waxaan idin leeyahay kulan wacan iyo isku soo noqod wanaagsan halka aad nagala socotaan waa janalkii ummadda Soomaaliyeed ee sariicaad ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal hor leh waad ku mahadsantiin la joogiina garab istaagiina dhinac muuqashadiina iyo dhiirigelintiina intaba ee fadlan haddii aad janalka ku cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay aad nala kulantaan baad soo booqato waa xusuusin si ay xiiso inoogu yeelato subscribe saar kambaleelkana furo si aad mar walba u hesho ama aad u noqoto daawadaha ugu horeeyo oo aan looga sheekeen oo isaga ka sheekeeya muuqaalka haddii aad naga mid ahayd aad baad u mahadsan tahay inta dib inooga soo biirtay idinna aad baad u mahadsantihiin inta soo socotana waxaan idin leenahay soo dhawaada oo si sharaf leh ayaan idin soo dhaweynaynaa maanta waxaan idin hayaa run ahaantii oo aan wadaagi doonaa mucjisaadkii dhacay 1 Agoosto Puntland dhexdeeda waa ay soo tarayaan fanaaniin waaweyn ayaa isku heshay meesha oo wacdarooyin aad u waaweyn ayaa laga dhigay wacdarooyinka ugu waaweyn ee laga dhigay ee run ahaantii aan la dafiri karin waxa kamid ah in ay maanta isheleen fanaaniin aad u culus oo fanka kuwii hore iyo kuwii dambaba ka tirsan haddii aan sidaas ku yiraahdo waxa laga yaabaa inaad tiraahdo fanka kuwii hore dadka ka tirsan ee meesha yimid maxay yihiin waa Farxiyo Fiska oo aad wada taqaanaan waxa garbaheeda ka ciyaaraya amaba meesha qurux iyo qiimo badan u yeelay labada fanaan ee sanadkani la holin waayay ee mucjisaadka la yimid fanka waa Sharma Boy iyo Maslax Mideeye ayaa labadeeda garbood ka ciyaaraya barnaamij duubaha sida quruxda badan u duuba saamicade oo aad wada taqaanaan oo Balanbaalis studio weeyaan in badan dhagahaaga way ku soo dhaceen waxaan leeyahay hore u soo saaxiib waxyaabaha aan u soo qaatay ama xiiso geliyay ayaa waxa ay ahayd in fanaaniinta ay yihiin fanaaniin hore fanaanad hore waa Farxiyo Fiska iyo fanaaniinta cusub ee maanta maxaa kulmiyay waan idin hayaa waan idin sheegi doonaa waxaan rabaa in aan horta marka ugu horeyso aad soo daawataan muuqaalka qiimaha badan oo aan idin hayo ee bal daawasho wacan laban kugu xusayna 1 Agoosto nabad kalgaadan kugu xusayna 1 Agoosto hormar kaamilan kugu xusayna 1 Agoosto nabad kalgaadan kugu xusayna 1 Agoosto aad baad ugu mahadsantihiin waad soo aragteen sida quruxda badan oo ay u dhacday muuqaalkaasi runtii waxa horay ka muuqday amaba joogay oo fadhiyay madaxweynaha Puntland waxaana uu qabsaday kuraasta si ay mucjisaadka muusiga oo dhagiisa ku soo dhacayo aysan dareenkiisa 100% sare u qaadin waxa kaloo idin hayaa sababta aan muuqaalkani u soo qaato ayaan bal u gudbi doonaa run ahaantii waxaan u jeclahay mar walba oo aan ku fikiraa in aan wixii xaqiiq ah ama run ah aan idin la wadaago sababta oo ah waxaan jeclahay dadka qaarna ay marmarka qaar isoo weydiiyaan sababta aan labadan fanaaniin mar walba uga soo hadlo oo aan u jeclahay inaan ka hadlo horan waa idinku sheegay maantana waa idinku celinayaa mucjisaadka meesha ka dhacayna in baan idinkaga sii sheegi doonaa waxa jirto labadan fanaan sida aan horay u sheegay iyagoo aanan magaca iyo maamuuska intaan la eg aanan lahayn xilliga ay Djibouti ay ku sugnaayeen waa ay ahaayeen fanaaniin laakiin labadooda marka ugu horeysay aan isku arko waxaan idin la wadaagay in ay yihiin labada fanaan isku soo baxayo xagga codka isku mehniyad ma ahan laakiin xagga codka iyo ciyaarta iyo qaabka intaba way iska shabahan waxaana idin sheegay hadii ay labadan fanaan jaanta iyo ciribta sidan isugu la sii helaan in ay gaari doonaan heer wanaagsan maantana marqaati ayaad ka wada tihiin heerka ay taagan yihiin iyo waxa ay marayaan oo waxa ay marayaan waxaan ula jeedaa fanaan walba waxa uu ku fikirayaa maanta in uu waqti la qaato sida aan ka wada warhayno Hodan Cabdiraxmaan hore ayay u sheegtay in ay jeclaan lahayd mar uun inay ka soo dhinac muuqato waxa kaloo dhacday Najm Nashaad ma waad aragteen inay ka soo dhinac muuqatay waxa kaloo saddexaad oo jiray deeqsan oo aad wada aragteen inay Sharma Boy ka soo dhinac muuqatay maanta waxa ay maraysaa Farxiyo Fiska iskalaaji sida aad arkayseen ayaa sacab tumayay waana run ahaantii heer
qofka bini'aadamka aan la xaqiri karaynin waxa uu gaaray heer aad u qurux badan waxaanu leenahay hore u sii soco xafladii Puntland wacdar ayuu ka dhigay sida aad ka wada warhaysan xamarna wacdarooyin waaweyn ayuu ka dhigay waxaana rajaynayaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida ay degto dhammaan in uu cagta soo marin doono Djibouti sida aad ka wada warhayseen doorashadii ka dhacday wacdarooyinka uu ka dhigay ma aha mid la xaqiri karo oo fanaanka aad buu u gelgelay maanta hadii uu marayo in ay fanaaniintii waaweyneed isaga ka horeysay fanka kaga horeeyay hadii ay ku fikirayaan in ay mar uun ka soo dhinac muuqdaan miyaysan ahayn in uu gaaray heer qurux badan oo walaalkeen aan ugu hambalyeyn karno kuna dhihi karno hore u sii soco hadafka yoolka aad leedahay waxaad ka dhigtaa mar walba mid sareeyo si aad mar walba guusha aad niyada ku heysid aad u gaartid ama aad Soomaali badan ay adiga aad u noqotid role model oo ay ku daydaan waxaana runtii ay tahay hadii qalbigaaga uu wanaagsan yahay oo aanan xasad iyo cuqdad aysan ku jirin si dhab ahna aad u doonaysid aad u leedahay yool aad inaad gaartid aad doonaysid waa xaqiiq inaad gaari doontid oo qof walba waxaad u noqonaysaa tusaale aad u wanaagsan maanta xumaanta waa ay ka daaleen Soomaalida mana jecla in ay mar walba ay maqlaan arin aad dhawahooda u dhibsado marka sidaas darteed waxaan jeclahay Sharma Boy sida uu hadda ku socdo in uu ku sii socdo bal adiga aad ku weydiiyo sidee baad u aragtaa mucjisaadka uu ka dhigay Garowe iyo Djibouti sidee bay adiga nafsad ahaan aad u aragtaa mana aaminsan tahay annaga waxa aan ka sheegayno in uu fanaanka yahay waa nala wadaagi doontaa ha xaqirin nin walaalka ah wiliga ay allaha ha xaqirin sida uu yahay mar walba ku tilmaam hadii aad nagu raacsan tahayna commentiga like-tana badiya videogana sii share gareey si oo walaalkeen ay u gaarto muuqaalka iyo hambaliyada aan mar walba hawada aan u marsiinayno reer Sariicaad waan ogahay inaad tihiin dad dhaxdhaxaad ah dad aanan xasad iyo cuqdadii mid aysan ku jirin dad jecel in ay mar walba samaha ku jiro naftooda ay ka rusheegaan oo banaanka ay soo dhigaan waana sababta mar walba aan channelka inta qof ee horumarsan aan uga hadalno inta kale tana aan jecelnahay mar walba inaan soo qaadno iyagana si ay u gartaan wanaaga iyo samaha aan guul gaarno barwaaqadana waxa ay ku jirtaa mar walba isku xirnaanta dadka sida ay iskugu xiran yihiin Soomaali weyn meel walba caalamka ay ka joogaan hawaara wanaaga waxaana rajaynayaa mar walba inaan ahaano dad positive ah oo iyaga isjecel hadii aan anaga isjeclaano dadka intooda kale way jeclaan doonaan hadii aan anaga isnacnaan ogaada dadka sidaas ayay inoo nici doonaan mar walba waxaan leeyahay Soomaalinimada ha guuleysato dadkana ha noqdaan dad isku niyad ah إن شاء الله تعالى انت aan muuqaalkani mid la mid ah amaba ka duwan aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa maganta Ilaahay ahaada meel walba waad joogtaan